Bismillahirrahmanirrahiim. Waa Somali News. Maanta waxaynu idiin soo gudbin doonaa waxyaabo aynu doonayno inaad ka taxadarto, taasoo noloshaada iyo weliba nolosha qoyskaadaba caawin doonto. Haddii xogtan ku soo gaartay, waxaa laga yaabaa inay aad iyo aad muhiim kuugu tahay. La wadaag qof waliba iyo weliba shaqsi waliba oo doonayso ama aad danaynayso, maxaa yeelay aad iyo aad ayay u anfacaysaa. Channelkana subscribe inoo saar. Marka ugu horeyso, magaalada Muqdisho iyo weliba caalamkaba waxaa ku badan qofka inuu si kedis ah ku dhinto isagoo shil galayo. Hase yeeshee, maanta waxaynu ka hadli doonaa qaraxyada aadka loogu laado oo hadda magaalada Muqdisho kusoo kordhay, kuwaasoo ah in gaariga loo dhigo wadada uu marayo inta badan uu isticmaalo. Taasi ayaan kaaga hayaa sir kaa caawinayso in aad ka badbaado ama waxyeeladeeda ay ka yaraato halka ay waxyeeladeeda kugu badan lahayd. Ugu horreyntii, qaraxyada jidka la dhigo waa qaraxyo runtii magaalada Muqdisho hadda aad iyo aad ugu soo batay, kuwaasoo ah runtii kuwa saameyntooda leh. Maanta waxaynu kuu soo gudbin doonaa dhowr hab oo aad kaga badbaadi karto. Number 1, haddii aad tahay qof u shaqeeya dowladda, qof mas'uul ah, qof hay-adeed, qof bartilmaameed noqon kara, waxaan ku siinayaa talooyin kuwaas oo ku anfici doona insha Allah. Number 1, ku soco jidka bartankiisa halkii aad kaga socon lahayd labada dhinac. Taasi waxay ka caawinaysaa qaraxii mise dhibaatadii meesha la dhigay inaad kaga badbaado, maxaa yeelay garaha jidka bartankiisa lama dhigi karo, waa in gees la dhigo. Number 2, ku soco waddo khaldan mar waliba jidkaaga yuusan saxnaanin. Haddiiba aad aragto jid bannaan ama gawaarida inta badan si aad ogtihiin 2 leen ayay kala leeyihiin. Haddiiba leenkaada uu yahay leenka saxda ah oo leenka khaldan uu yahay faaruq, leenkaas faaruqa ah mar. Taasi waxay ka caawinaysaa in qofka cadowga kugu ah aad ka badbaado, maxaa yeelay waxaa tahay qof halkii uu rabo maraa, bartilmaameedna qofka ma ka karo ama ma ka dhigan karo labada dhinacba inuu wax ku dhigo, maxaa yeelay hal mid ayuu wax ku dhigi karaa. Kolba markaa jidka seedkaaga aad ka leexato oo seed khaldan qaado, waxaa waaye waxaa kugu jaha wareerayo cadowgaada. Number 3, ha isticmaalin jid joogto ah kaasoo lagugu bartilmaameedsan karo. Mar waliba waxaad martaa jidka aad isleedahay maanta kanaad martee berrina kan kala mar. Taasi waxay ka caawinaysaa in cadowgaaga uu kugu wareero. Talooyinkan aad iyo ku anfacayaan. Walaal subscribe saarna page-ka insha Allah, lana wadaag asxaabtaada, qaraabadaada, ehelkaaga, qof waliba ood garanayso insha Allah.